waxa ay isbeddel weyn ku sameynayaan qorshaha tababarada Soomaaliya iyo ciidamada kala duwan ee loo dhisayo qarankan. Waxa ay rabaan in heshiis cusub laga saxiixdo Xasan Sheekh Maxamuud xilli uu isbeddel weyn ku imaanayo wada shaqaynta Ankara iyo Muqdisho. Waa halbeegga wararkii warbixin degdeg ah oo aan ku eegi doono Turkiga oo markan bilaabay in isbeddel weyn uu ku sameeyo tababarada uu siiyo ciidamada Soomaalida. Haddaba waa nuucee isbeddelka Turkigu uu sameynayo? Xagee laga dhigayaa tababarka ciidamada Soomaaliyeed? Ma waxaa lagu soo koobayaa gudaha dalka iyo xerada Turkisom, mise waxaa lagu soo koobayaa isbaarta gobolka Buuraleyda ee waddanka Turkiga? Warbixintan ayaan ku falanqayn doonaa, balse marka hore daawade sii sheergaree muuqaalkan oo leegna saar, kuna soo biir oo follow-dhe page-keenna Facebook ee halbeegga wararka si aad ula socoto xogaha iyo muuqaalada halkan aynu ku baahino. Waa hagaag aynu ku horeyne Turkiga oo ah saaxiibka ugu weyn ee maanta Soomaaliya ay leedahay, ciidamo aad u fara badanna u tababaray dalkeenna, ayaa markan wada qorshe cajiib ah oo isbeddel weyn ugu sameynayo habka iyo hanaanka tababareed ee ciidamada Soomaaliya. Waxaa soo noqday dacwadaha iyo ashtikada laga soo gudbinayo ciidamada Turkigu u tababaro Soomaaliya, si gaar ah Haramcad iyo Gorgor oo dhaliilo kala duwan looga soo gudbiyey tan iyo markii tababarka ay qaateen kadib oo shaqayntooda iyo howlgalka qaranka ay bilaabeen. Erdogan iyo dowladdiisa ayaa wada taatika iyo farsamo kale oo cajiib ah oo isbeddel ballaaran lagu sameynayo. Turkiga waxa uu doonayaa in ciidamada Soomaaliyeed ee tababarka loo geeyo dalkeeda muddo 6 bil ilaa 1 sano ah, waqtigooda ay ku qaataan barashada luqadda dalkaasi iyo sidoo kale in la baro hab dhaqanka ciidannimo iyo waxa laga rabo askariga. Sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Anadolu, isbeddelkan ayaa lagu bilaabayaa ciidamada Turkiga hadda uu tababarkooda u socdo si looga dhiso ku hadalka luqadda dalkaas oo ay horey caqabad uga taagnayd. Dhibaatada dhanka luqadda ah ee soo wajahday askarta Soomaalida ee Turkiga ku tababaranaysa iyo in macallimiin Turkida ah aysan ku hadli karin Ingiriis ku filan ayaa laga yaabaa in ay door ka ciyaareen ballaarinta waxbarashada luqadda Turkiga iyo sidoo kale in la soo koobo muddada tababarka ay ku qaadanayaan gudaha waddankaasi. Turkiga ayaa loo diraa ciidamo Soomaali ah si ay tababarada kumaandooska ugu soo qaataan xarunta tababarka la dagaalanka argagixisada ee ku taalla galbeedka magaalada Isbaarta ee waddanka Turkiga. Sida laga soo xigtay saraakiisha Turkida, Turkigu wuxuu tababaray ku dhowaad ilaa 7,000 oo askari iyo saraakiil Soomaali ah waqtiyo kala duwan, taas oo ka dhigan qiyaastii 3 meelood meel ka mid ah in Turkigu tababaray ciidamada Soomaaliya. Qorshahan ayaana ah mid kale oo Turkigu ku doonayo inuu ku sii xoojiyo saameyntiisa iyo sii joogitaankiisa gudaha Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud iyo Rajab Tayyip Erdogan ayaa Turkiga ku wada gaaray heshiis afgarad ah oo dhigaya in Turkiga tababarka ay siiyaan Soomaaliya laba loo kala qaybiyo, oo qaybta hore ay ku soo qaataan gudaha dalka Turkiga, halka qaybta kale ee la xiriirta wadaniyadda u shaqaynta dalkooda iyo dalkoodana ay ku qaataan gudaha waddanka, gaar ahaan xerada Turkisom ee ku taalla gudaha magaalada Muqdisho. Qorshahaas ayaa socon waayey, balse mar kale Erdogan iyo dowladdiisu waxa ay qaateen go'aan weyn oo isbeddel loogu sameynayo howlaha tababarka ee ciidamada Soomaalida ay siiyaan Turkigu. Daawado fikirkaaga iyo waxa ay kula tahay ku reeb qaybta hoose ee commentiska, adigoona la wadaagaya aragtida Turkiga iyo si aad u aragto fikirkaagu waa inoo muhiim. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.